haddii aad dhalan lahayd 1900 ka soo qaad waxaa dhalatay sanadkii 1900 markii aad jirtay 14 sano waxaa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii ayaa dhammaaday adigoo oo jiray 18 sano waxaa ku naf waayay dagaalkaasi 22 milyan oo qof muddo gaaban kadib waxaa dilaacay hargabkii Isbaanishka ahaa Spanish influenza waxaana ku dhintay dad gaaraya 50 milyan adiga waad badbaaday waxaa jirtaa 20 sano markii aad gaartay 29 jir waxaa dhacay mushkilad dhaqaale oo caalamka oo dhan ah taasi oo keentay burbur dhaqaale sixir barar gaajo iyo shaqo la'aan baahsan markii aad gaartay 33 sano waxaa soo ifbaxay hogaankii naasiyiinta 39 sano markii aad gaartay waxaa qarxay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana uu dhammaaday adiga oo jira 45 sano markii ay halkaasi marayso waxaa dhintay dad gaaraya 60 milyan oo qof markii aad gaartay 60 sano waxaa dilaacay dagaalkii gacanka Kuuriya waxaa xigay dagaalkii Vietnam oo isaguna kacay adiga oo 62 sano jir ah wuxuuna dhammaaday adiga oo 75 jir ah qofkii dhashay sanadkii 1985 waxa uu aaminsan yahay in awoowayaashiisa aysan dib soo arkin laakiin taa beddelkeeda rafaad iyo musiibooyin ayay u soo joogeen waxaase ka daran kuwa dhashay 2000 iyo wixii ka dambeeyay oo moodaya inaysan jirin musiibo ka weyn markii uu go'ay qadka internetka ama ay like u waayeen boostigii ay soo dhigeen Facebook iyo Instagram haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh aragtidaada ka dhiibo sidoo kalena asxaabtaada kale u share garee oo koobi linkiga taabo mahadsanid